بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan su'aal ku weydiiyo su'aashaas oo ah runtii waan uga jawaabay oo maanta joogto ayaa ka jawaabtay laakiin dad badan baa isku yara wareeriyay oo su'aashii waxaan malaynayaa anigu kulli saan u fahmi waayey su'aashu waxay tahay sheekh xawaaladda waxaad tiri xawaaladdu haddii qof markuu wax dirayo uu lacagtii uu yidhaahdo qofkii wax dirayay iga sii dir waxa weeyaan arrintaas ma wanaagsana oo waxa ku jirta ribo kulli anigu saan u fahmay waxa weeyaan dadku waxay leeyihiin haddii qofkii lacagta dirayay aan idhaahdo maanta intuu baahdi joogaa uu yidhaahdo 86 buu joogaa euro $100 oo anigu maalinta aan ku xisaabtamo $186 oo 7 casho kabacdi aan u keeno lacagtii maxaa ku jaban laakiin anigu kulli usoo fahmay waxa weeyaan sarifka isbedelaya baa meesha ku jiro oo maalintaas laakiin waxay leeyihiin maalintii qof waan kuuba qaatay lacag go-aan buu ii sheegay lacagtaaba meel baa iska dhigay markii aan is aragnay baan lacagta u keenay arrintaan بسم الله الرحمن الرحيم أرنت وحويان إيجاسي در أو دن باخلدن إيجاسي در ومعاملة الربا سير ربا كتاهي وحي كتاهي ومسألة دقيقة أو فقهية أو فهم كذا بهاي إنه روح وحوجا أولي هاي أقونا مسعيش فقهية waxay ku imaanaysaa adiga iyo shirkadda iga sii dir aad leedahay waxa idin dhex maray waa aqdi dayn ah magarat in laga sii diro lacagta laga dirayo waa dayn shirkaddii lacag bay ku daymisay waa mucaamalo way ku dirtay waa aqdi labaad waa laba aqdi bay kala tahay waan ku daymiyay haddana waan kuu diray labada caqdi midna waa caqdul bayc baa la yidhahdaa waa xawilaada midna waa caqdi dayn ah labada caqdi oo midna bayc yahay midna dayn yahay oo isku xidhan xadiid nasa jiro nabigu ku diiday sallallahu alayhi wasallam mid labaad baa jirtay qaab kalena waa loo dhigaa shirkadda lacagaha aad ka dirsanaysaan lacagta shirkaddu markay ka qaado ama ay ku daymiso lacagtaasi shirkadda dayn bay ku tahay waa lacag adiga diridda ay ka dirtay bimacnaa haddii ay lacagtaasi lunto soo mar walba shirkadda kuma lihid hadday ruuxii gaari weydo soo kuma lihid shirkadda dayn waayo lacagta noocaasa marka kaana waxay ka dhigan tahay shirkaddii adoo dayn siiyey oo tiri meel hebla geeya siftajaa la dhihi jiray xilligii salaf siftaja ayaa la yidhaahdaa waa mucaamalo la yaqaanay bay marka xawilaadu waa dayn daynna shirkada ku siisay waa laba daymood oo isku xidhan way marka عقد قرضي أي عقد قرضي إن لا يسكت حدنا واربو صدقنا أنت أن واحد كلام اللي قاعدين بعقودا يسكت حدنا بان شريعة وقولين دنك كلام وصدحات لعقدا شركته أي كديمين يسو معها دين وحاكى لك شريعة إنه دين توحلوا بحياة إحسان دين توصم فل كليه وعمل لك ما فائده روح هدو وحدتك وحود ديميو سيئو وحوقيت له دينته واربو شركتها حوالدوه كمد معها قوانين تودي الدساتير تودي إني واحد ديميان ضدك لكن مركا يجو دن ليهينو أي كو حويليان كوميشن كاهليان مركا سيكو ديمينين شركته إني واحد ديمي سمحاك يعني مركا كوميشن كاهليان عروقاس waxaad tiraahdaa idinkoon commission isaaranaynin ideymiya deyn kaasha bas ay siiyay bariwaan idin keenay ومسينة شركة waxay wax u bixinayso waa commissionka xawaaliyada geelayso waa Soomaa وبالتالي وقرض iyo deyn shirkadu ay manfaco ku qabto waa shariicaduna waxay leedahay muaamaladaasi waa ribo
dhowrka dhinac bay marka horta shariicada kaga khaldan ma faahfaahin maalintii dhaweyd laakiin hadda aan nooca tafsiil agaliyo طيب haddaad iga sii dir jiraahdo laga diro ama ruuxa shirkadda jooga jeebkiisa ha ka daymiyo ama shirkadda ha ka jeediyo sanduuqeeda labaduba khaldanta xal maxaa noqon kara marka xal waxa noqon kara wakiilka shirkadda u jooga meesha lacagta aad rabto bil walba inaad ka dirsato isagu ha ku hayo u dhiibo bishii maxaad dirtaa 500 euro dirtaa kaba soo qaad 500 euro ha ku hayo soo garan isagoo ku haya la soo hadal waxa tiraahdaa lacagtaad ii haysay inta ka dir wagar خلاص waa lacagtaadii dayn ma uu haya uu ku diraya commission kiisana uu ka qaadanaya xalaal nadiif way markaa halka taas oo noqon kara kaliya waxaad u baahan tahay meesha bil walba aad dayn dib u dhacayso hal bil intaad nafta iska qaado xogaa horay mariyo agtiisa dhibo بس وابد كبحي باشكالات كانوا دوات كبحي والله أعلم